Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fiidiyogeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa xamaaligii isku beddelay boqorka. Qisadan runtii waa qiso cajiib ah. Marka hore aan soo koobno taariikhda qofka ay ku dhacday. Waxaa lagu magacaabaa Maxamed ibn Abi Caamir, waxaana lagu naynaysaa Alxaajib Mansuur. Waxaa la yidhaahdaa magaciisa oo dhammaystiran Maxamed ibn Xafs ibn Cabdilmalik Almucaathiri. Wuxuu ku dhashay jasiirat Alkhadraa oo ka tirsan Andalus oo ah dhulka loo yaqaano Spain iyo Portugal hadda 327 hijriga. Wuxuu ahaa boqorka Andalus ee dhulkaas muslimiinta muddo ku dhow nus qarni 50 sano. Muddadaasna wuxuu galay in ku dhow 52 dagaal ilaa 54 dagaal. Waxa cajiibka ah waxay tahay weligiisna dagaal lagu jebin. Waxaasoo dagaal waa ku guuleystay. Haddaba aan u soo dhacno qisadiisa. Ninkan wuxuu ahaa markiisii hore xamaali. Habeenada ka mid ah ayaa isaga iyo laba xamaali oo kale oo ay saaxiibo ahaayeen waxay isla fariisteen meel. Shaqada ay ku xamaashaanna waxay ahayd dameer ay dadka ka kiray jireen. Saddexdooda markay meel isla fariisteen, Maxamed ayaa ku yiri labadii kale. Mid ka mid ah ayuu ku yiri, maxaad tamaninaysaa? Maxaad jeclaan lahayd inaad hesho? Midkii koowaad wuxuu yiri, waxaan tamaninayaa inaan helo 10 dameer. 10kaas dameer oo aan leeyahay oo ay ii shaqeeyaan. Kan kalena wuxuu yiri, adigana maxaad tamaninaysaa? Wuxuu yiri, aniga waxaan tamanin lahaa ama aan hididiila lahaa inaad dukaay yar suuqa ku yeesho. Waxay dhaheen, haye adiga tookadaada maxaa hididiilan lahayd? Wuxuu yiri, aniga waxaan hididiilanayaa inaan noqdo khaliifka Andalus ama boqorka Andalus. Wuxuu ku yiri marka, maxaan idin siiyaa haddii aan khaliifka noqdo? Maxaa iga dalbanaysaan? Kii koowaad ayaa yiri, haddaa khaliif noqoto, qasriyo iyo lacag iyo maal iyo fardo iyo xoolo isii. Kii labaad ayuu ku yiri, haye adna maxaan ku siiyaa? Kii labaad wuxuu yiri, adiga haddaa boqor noqoto ahaa. Adiga xamaaliga ma noqonayo. Haddaan noqoto aniga wajiga inta wax madow iga marido oo wajiga madow ii marido, dameerna i saarto. Magaalada igu soo wareeji kadibna waxaa dhahdaa waa ninka magaalada ugu beenta badan yaan la aaminin. Wuxuu yiri, haye uu ka tagay. Subaxii wuxuu gaday dameerkiisa. Kadibna waxuu ku biiray ciidanka booliska. Markii uu ku biiray ciidanka booliska, wuxuu ahaa nin aad u dadaala oo aad u shaqeeya si uu martabad ama meel sare uga gaadho ciidanka. Sababtoo ah waa nin hadaf leh. Ilaahay amarkiis waxaa dhacday muddo kadib inuu noqdo madaxa booliska. Uuna geeriyoodo khaliifkii muslimiinta ee xilligaas. Khaliifka wuxuu ka tagay wiil yar oo 10 jira oo uu boqorka dhaxlaaya ahaa. Laakiin maadaama wiilka yar oo qaangaar ahayn oo wax maamuli karin, wuxuu u sii yeelay dad sii gaarsiiyay intuu ka qaangaarayo xukunka. Waxayna ahayd hooyadiis wiilka Maxamed ibn Abi Caamirkan oo ahaa madaxa booliska iyo madaxa golaha wasiirada oo ahaa xilligaas ra'iisul wasaaraha camal. Maxamed marka wuxuu rabaa inuu boqorka noqdo. Wuxuu dabin u dhigay madaxii ciidanka oo dhan. Madaxa ciidanka oo dhan ayuu dabin u dhigay kadibna uu ka takhalusay. Kadibna wuxuu dabin u dhigay madaxa wasaaradda kii ra'iisul wasaaraha ahaa. Kadibna waa ka takhalusay. Islaantii iyada xiriir uu la yeeshay waxaanu isiri islaanta waxba ka tani maydo. Wiilkii yaraa qasri uu ku xiray kadibna isaga ayaa noqday boqorka Andalus. Boqorka markuu noqday 20 sano kadib ayuu boqor noqday. 30 sano kadib markuu dhowr sano ahaa boqor, wuxuu soo xasuustay saaxiibadiisii habeenkii meesha ay isla fariisteen oo xamaaliyada isla ahaayeen. Boqor wuxuu diray ciidan marka wuxuu yiri magaalada taga hebel iyo hebel la soo raadiyo. Waxaa la soo helay iyagoo duqoobay oo sidoodii fakhri ah. Nimankii markii loo keenay wuxuu ku yiri kii koowaad, haye wixii habeenkii aan meesha fadhinay aad iga codsatay iga codso. Hadda ku celi sheego. Kii koowaad wuu sheegtay xoolihii iyo wixii ayuu sheegtay. Wuxuu yiri ninkaas intuu sheegtay la siiyo. Kii kalena wuxuu yiri adna sheeg. Wuxuu yiri may boqorow waxay iga ahayd kaftan uma maleeyin inaan noqoydo. May wuxuu yiri lama rabo saas. Sheeg wixii aad sheegtay. Markii uu sheegay wuxuu yiri intii uu sheegaba ku sameeya. Kadibna waa lagu sameeyay. Qisada maanta intaas ayay ku dhamaatay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.